بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ولا ليال إلهي بمهد الله سبحانه وتعالى nabadgelyo iyo naxariisina rasuulkeenni maxamed aha sala allahu calayhi wasalam korkiisa ha ahaato maanta walaalayaal waxaynu halkan ku duubaynaa ama aan kaga hadlaynaa kitaab aada u muhima oo dadka muslimiinta ah aada u anfacaya in shaa allahu tabaaraka wa tacaala qolada soo daabacday ama daabacadduna ay ku magacowday silsilatu zaadi lmu'min silsilada zaadka qofka mu'minka ah kitaabkanina lambar 5 buu ka yahay waxaana ugu magac daray qoraagu doctor khaalid bin cabdiraxmaan jariisi sheekhaas isaga ah oo kitaabkan isku soo aruuriyey wuxuu ugu magac daray irqi nafsaka naftaada ku tuf wa ahlaka ahalkaagana ku tuf binafsika adiga naftaadu waxa weye litakun anta ashabah adu waxaad noqotaa qofkii lagu tufayey litakun anta raaqi waxaad noqotaa qofkii wax ku tufayey yacni wuxuu doonayaa inuu ina baro sheekhu inaynu inagu aynu isku tufno oo kitaabkaana uu ku diyaariyey aayadihii la isku tufayey iyo axaadiistii iyo ducooyinkii marka sidaa daraaddeed adiga naftaada isku tufaya ahalkaagana waa ku tufaysaa adaana ku tufaya leannahu marka qofku uu heerkaas gaaro waxa weeye waa qof ilaahayna ku kalsoon subxaanahu wa tacaala isaguna dee wuxuu akhriyayo inuu qur-aan yahay ku kalsoon markaana nafcigiisa la helayo marka sheekhu wuxuu u sameeyey kitaabka muqadima ayuu u sameeyey wuxuuna ku bilaabay alxamdu lilah alxanaan almanaan alxamdu lilah ilaah baa mahad oo dhan leh alxanaan allaha naxariista badan almanaan ee manaysiga iyo galladaysiga badan culummadu waxay ka hadlaan xanaan min asmaa illaahi miya marka waxay u kala qaybsameen 3 qowl qolo waxay yidhaahdeen xanaan asmaa'da ilaahay kuma jiro ayay yidhaahdeen axaadiista ku soo aroortay inuu asmaa'da ilaahay ka mid yahay sida xadiiska musnadu imaam axmed ku sugan iyo mustadrakulxaakim iyo kayruhuma riwaayaadkaas oo dhan dhammaanteed dacfi ayaa ku wada jira ahlu cilmiguna waxay yacni markaas iyadaa u kala qaybsameen inuu ism ilaahay yahay iyo inuusan ahayn 3 qowl qowlka u horeeya waxa weeye inuusan ahayn asmaa'da ilaahay waxaana ka mid a imaamu maalik iyo khadaabi raggaas waxaa kale oo qolada kalena ay qabtaa inuu asmaa'da ilaahay uu ka mid yahay waxaana ka mid a imaamu lbayhaqi oo kitaabkiisa fil asmaa'i wasifaat uu ku sheegay qolada saddexaadna waxay leeyihiin tawaquf way ka istaageen oo inuu yahay iyo in kale maadaama maaragtay ay xoogay shaki ku jiro nas saxiixan aan lahayn sida uu qariray maxamed saalax cuthaymiin caalimka faqiihahi majmuucu thamiin kitaabka la yidhaahdo uu ku qariray wuxuu leeyahay waa tawaquf waa laga istaagaya marka alxanaan ilaaha addoommadiisa jecel ama alxanaan allah u naxariista addoommadiisa almanaan ee manaysiga badanoo wax walba oo ina siiyey allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa ayay ka yimaadeen alqadiir ilaaha awoodda le alraxmaan naxariista badan maalik ilmulki mulkiga midka yacni milkiyey ah maalik midka mulkiyey almulki mulkiga cadiimu sha'ni sha'nigiisuna wen yahay waa allah subxaanahu wa tacaala sifaadkiisii wey yujiibu midka ajiiba mudaran mid dhibaataysan dacaahu oo baryay wayucaafii caafiya cabdan addoon ibtalaahu u imtixaanay naxmaduhu waa mahadinaynaa subxaanahu ceeb la-aaya calaa cadiimi nicam nicmooyinka waaweyn iyo wajaziili lixsaan ixsaankiisa ballaaran
wanashhadu waxaan qiraynaa an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye mid xaq lagu caabudaa inuusan jirin waxdahu keligii inuu yahay laa shariika lahu mid wax la wadaagaana inuusan lahayn wa anna muxamadan midka la mahadbadiyey cabduhu addoonkiisii wa rasuuluhu rasuulkiisi inuu yahay muxamed kii la mahadbadiyey weeye nebi maxamed magaciisa calayhi salaatu wassalaam waa magaca khaaskaa oo isagu uu leeyahay almabcuuthi kii lasoo saaray raxmatan naxariis loo soo saaray lilcaalamiina caalamiinta inuu xumaanta iyo naarta ka badbaadiyo oo dhibka maaragtay uu ka leexiyo nebigu calayhi salaatu wassalaam naxariis buu ahaa sala allahu allah u naxariisto caleyhi korkiisa wa calaa aalihi aalkiisii wa saxbihi asxaabtiisii assaadati ee sayidyaalka ahaa jamcu sayid wey assaada sayidyaalka ahaa alguri kuwii macnaha yacni nuurayay al aclaam ee calamada ahaa alguri almayaamiin oo kale sida xadiiska ku sugnaa kuwa maaragtay yacni adraaftooda iyo gobolladooda sida wejiga iyo waxa la mid ah kuwa macnaha ka ifi doona aakharo wey alguri kuwii macnaha nuurayay oo macnihii waxa weeye wejiyada caddaa al calaam calamada ahaa jamcu calam wey aclaam waa dad macnihii aclaam oo kuwa lagu soo hirto sida calanka loogu soo hirto kalea lagu soo hirtaa wataabiciina iyo kuwa raacay lahum iyaga biixsaanin ixsaan ku raacay oo dhanba intaasoo dhani ha ahaato naxariista iyo nabadgelyada wa bacdu intaa ka bacdi faqad waxaa dhaba saarat inay noqotay alruqyatu sharciya tufmada sharcigaahi min al umuuri umuurtii bay ka mid noqotay allatii tii gafala canhaa ay halmaameen bacdunaasi dadka qaar ay halmaameen yacni ruqyada sharcigaahi waxay ka mid tahay buu yidhi sheekhu kuwa waxyaabaha ama umuurta gafala ay moog yihiin ay moogaadeen canhaa xaggeeda bacdunaasi dadka qaarkood oo markii la qabtaba isbitaal bay isaga ordayaan isku tufi maayaan bal rubamaa waxaa laga yaabaa lam takhdur lahum calaa baal inaysan iyaga maskaxdoodaba kusoo dhicin oo aysan wax weynba la ahayn marka qofku uu dareemo jiro markiiba inuu isbitaal ku ordo ama qof maaragtay daawo siiya daawooyinka kimikada ama kuwa habaalka oo hadda socda iyo waxaas uu markiiba ku ordo waqad adxad waxay noqotay cindahum agtooda ka annahaa sidii iyadoo ah xadiidu khuraafa sheeko khuraafaadoo kale ayay agtooda ka noqotay wey oo macnihii isku tufmadaas maba sii aaminsana dad badan haasatan dadka reemagaalka ah oo lacagaha haysta iyo tujaarta iyo dadka mutacalimiin baa nahay yidhaahdo oo barta maaragtay cilmigan maadigaa iyo ku fogaada dadka noocaasi yacni waa saas hadda dad kale oo qaflo ay ku dhacday oo muslimiinta caadigaa ka mid yihiin oo hataa kuwa waxyaqaan ka mid yihiina wayba iska jiraan buu leeyahy laakiin hase yeeshee almu'minuuna mu'miniinta xaqan ee xaqaahi yuuqinuuna waxay yaqiininayaan ana aruqa sharciya tufmooyinka sharcigaahi jaliilatu lqadri qadarkeedu inuu aada u weyn yahay cadiimatu nafci nafcigeeduna ballaaran yahay yustashfaa bihaa lagu macnaha shifo dalbo min alamraadi cudurrada jamiicihaa dhammaanteedba amraadaasi alxisiyati kuwa macnaha xisiga ah oo minha iyada ka mid oo qofka uu dareemayo oo korkiisa haddii booga ku yaalaan haddii madax xanuunayo haddii kida walmacnawiyati iyo kuwa macnawiga aho qofka haddii la derdero oo meel laga hayo aan la garanayn laakiin qofkii qalbiga waa wax macnawi aho wax muuqanaya maaha xisina waa waxa muuqdow labadaba yaa lagaga macnaha shifo dalba walaqad waxaa dhaba tadaafarad inay badatay nusuusu shariicati shareecada nusuusteeda alqaraa shareecadii qaraahaydee shareecadii caddayd calaa mashruuciyati alistishfaa'i bilqur'aan inay mashruuc tahay in qur-aanka lagu shifo dalbo qofka hadduu jiran yahay inuu qur-aanka marka hore ka bilaabo oo qur-aanka uu ku kalsoonaado iyo wal adciyati ducooyinka ilaahay la baryo iyo watacawudaat annabawiya nebigu kuwuu ku magangeli jiray ilaahay kaga magangeli jiray sharka iyo balaayada iyo xanuunka qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi sarreeye qul waxaad tidhaahdaa huwa qur'aankani liladiina kuwa aamanuu rumeeyey hudan hanuun buu u yahay oo baadida kaga hanuunaan wa shifaa'un
caafimaadna wuu u yahay oo shifo bimaa fi lquluubi quluubta waxa ku jira min alamraadi alxisiyati ama maradyaalka la arki karo walmacnawiyati kuwa macnawiga aan la arki karin intaba. fusilat juz-u min aayatin aayad qeyb ka mida weeye waana aayadda 44aad suuratu macnaha fusilat. wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan ana caaishata radia allahu canha qaalat, saxiixa waxaa laga wadaa saxiixu albukhaari, waxaa ku sugan caaisha ilaahay ha ka raali noqdee radia allahu canha, inay caaisha allah ka raali noqdee ay macnaha qaala tiri kaana wuxuu ahaa ida shtakaa markuu jirado rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam, rasuulku markuu xanuunsado, raqaahu jibriil ayaa ku tufi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam hadduu xanuunsado bay leedahay caaisha radia allahu canha oo nebigii inooga warramaysa. ilaa wax walba daliil baa loo baahan yahay. waxay leedahay kaana wuxuu ahaa ida shtakaa rasuulullahi, rasuulka ilaahi hadduu xanuunsado sala allahu caleyh wasalam, raqaahu jibriil baa ku tufi jiray oo macnihii yacni wax ku akhriyi jiray. qaala wuxuuna odhan jiray bismi illaahi, arqiika bismi illah oo kale waxaa u qadaran bismi illaahi, ilaahay magaciisaan arqiika kugu tufayaa, magaca ilaahay bismillaahi ah yaan kugu tufayaa, yubriika inuu ilaahay ku caafimaad siiyo, wa min kulli daa'in xanuun kastana yashfiika inuu kaa shaafiyo, wa min shari xaasidin xaasidka sharkiisana idaa xasada markuu xasdayo ku xasdo inuu ilaahay cayntiisa iyo xasadkiisa uu ilaahay kaa shaafiyo, wa shari kulli dii caynin mid kastoo cayn u saaxiiba sharkiisana ilaahay inuu kaa shaafiyo. markaasoo uma jeedid ducadaas iyada ah oo qiimaha badan ayuu markaas ku akhriyi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam. xadiidkuna macnaha waa xadiid saxiixa, akhrajahu muslim baana soo saaray, waa muslim xadiisku, wuxuuna ku soo saaray raqamka 2185 buu ku soo saaray, waa xadiid saxiixa wey. marka ducadan waa ujeedaa jibriil baa ku tufi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka inay bannaan tahay ducooyinka in laysku tufo iyo mucawadaadka ayay daliil u tahay wey. wa min almuqarari cinda ahli hada sha'ni, waxyaabaha ay qireen oo ka qiran dadka cinda ahli hada sha'ni, sha'nigan ahalkiisa agtooda waxa ka qiran oo wada qirsan yihiin waxaa ka mid ah, sha'nigan ahalkiisuna waa dadka maaragtay dadka ku tufa oo yacni ruqada isticmaala ama iyagu isku tufa. marka waxaa ka cad agtooda anna mafhuuma ruqada fahamkooda ama mafhuumka ruqada fiihi dhexdiisa sacatun daahira, waa sacnimo daahira baa ku sugan. macnaha waxyaabaha la isku tufayaa waa waasac maaragtay. wa anna maa kaana minha mubaaxan, waxaana ka mid ah mid mubaaxa. wa mu-adaahu xusuula nafcin bihi, samayntiisuna ay leedahay ay keenayso xusuula nafci ay keenayso. wa mu-adaahu samayntiisuna ay xusuulu nafcin bihi, intifaac lagu intifaaco ay keenayso. camiluu bihi oo ay samaynayaan. yacni wuxuu leeyahay anna mafhuuma ruqada mafhuumkeeda, waxyaabaha la isku tuftufo faham ahaan buu leeyahay, fiihi sicatun daahira, waa sacnimo daahira ku sugan. wa anna maa kaana minhaa mubaaxan, waxyaabaha ka mid ahoo mubaaxaahi, wa mu-adaahu mu-adihiisa iyo ficilkiisuna uu yahay xusuula nafcin bihi, nafci in lagu xasilsado. camiluu bihi way ku dhaqmayeen wey, dadku way ku dhaqmayeen dadkii hore. fataraa waxaad arkaysaa bacdahum yaqtasiru biruqya, camiluu bihi ay ku dhaqmayeen. fataraa waxaad arkaysaa bacdahum qaarkood yaqtasiru inuu ku koobsanayo oo ku gaabsanayo biruqyati calaa suuratin, suurada inuu isku tufo bicaynaha caynkeeda. macnaha wuxuu ka warramayaa mafhuumka ruqada hadda dadku isticmaalaan. wuxuu leeyahay fiihi sicatun daahira baa ku sugan. wa anna maa kaana minhaa mubaaxan, wixii iyada mubaaxa oo iyada mubaaxa ka mid ah, wa mu-adaahu xusuula nafcin bihi, oo uu yahay mu-adihiisa ama samayntiisu mid macnaha nafci laga helayo,
camiluu bihi oo ay dadku samaynayaan fa taraa waxaad arkaysaan bacduhum qaarkood yaqtasiru isagoo ku koobsanaya biruqyati ruqyada calaa suuratin bicaynihaa hal suurad keliya baa qaarkood ku koobsadaano marka ay nafciga ka raadinayaan ruqada isku tufayaan mathalan ba hal suuradoo kale ayuu isku akhriyayaa maantoo dhan kalfaatixati mathalan faatixadoo kale dadka qaar macnaha sida ay faatixa mar walba u leeyihiinu faatixada un ay isku akhriyayaan wax kasoo gaaray iyo wax walba faatixadaasunbay macnaha isticmaalayaan wey ow suurata albaqara ama suuratulbaqara ayay isticmaalayaan oo mase yajmacu bayna suwarin ama suurado ayuu isu keenayaa dhowr suuradood mathalan ba kalfaatixati waalmucawadatayn faatixada iyo labada mucawadataynka ah wa tajidu bacdan aakhar qaar kale waxaad arkaysaa yarqaa biaayatin waxasib aayad ayuu isku akhriyayaa waxasib oo keliya iyadaa ugu fulan buu leeyahy ka aayati lkursiyi sida aayatu kursidoo kale wa minhu waxaa ka mid a man yaraa mid arka alruqyata isku tufidda bilqaraa'ati qaraa'ada la isku tufayo calaa maa-in dahuurin biyo daahira intuu qaraa'o ku tufo ayuu markaas macnaha cabbayaa wey qaarkood waxay sameeyaan dadka tahliisha waxaan idhaahna wey wa minhum waxaa ka mid a man yaraa mid arka alruqya tufitaan bilqaraa'ati qaraa'o lagu tufo calaa maa-in dahuurin biyo daahira aw calaa zaytin ama saliid ayuu ku tufayaa liyudahana bihi isuu isu mariyo qaarna macnihii waxay isticmaalayaan saliidday ku tufayaan qur-aankii markaasay ismarinayaan sida zaytuunka ama zaytu xabatu sawdaa iyo wax la mid aw casalin ama malab buu ku tufayaa liyu'kala minhu si loo cuno ayuu ugu tufayaa wa kullu min haa-ulaa'i ruqaad dhammaanba dadka ruqaadda ah oo wax ku tutufayaa dadkaa wax tufaa qad camida ilaa bacdin maa yubaaxu min aruqya wuxuu u qastay qeyb ka mida waxay bannaan oo ruqyada ah oo mimaa yurjaa ka mida waxaa la rajaynayo nafcuhu nafcigiisa wa yunaasibu xaala almarqiy qofka lagu tufaya xaaladiisana uu macnaha munaasab ku ah wa cumdatuhum dadka cuskashadoodu fii daalika arrinkaa kullihii dhammaanba waxay cuskadeen qowlu nabiyi weeye sala allahu alay wasalam nabiga qowlkiisi uu yidhi ucruduu calaya ruqaakum waxyaabaha dadka ku tuftufaysaan iisoo bandhiga bal ii sheega maxaa dadka ku tuftaan laa ba'sa biruqaa ruqyooyinku dhib male buu yihi nebigu maa lam yakun fiihi shirkun hadduusan shirki ku jirin yacnii maalmaha ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu dadkii wuxuu ku yidhi saxaabadii ucruduu calaya ruqaakum iisoo bandhiga waxyaabaha aad dadka ku tuftaan aniga iisoo bandhiga oo ii sheega yani laa ba'sa biruqaa ruqadu dhib male maa lam yakun fiihi shirku haddaa shirki ku jirin wa qowlihi sala allahu alayh wasalam wa qowluhu iyo qowlkiisa sala allahu alay wasalam nebigu uu yidhi maa araa ba'san dhib uma arko man istadaaca ninkii awoodi kara an yanfaca inuu anfaco akhaahu walaalkii falyanfachu ha anfaco macnaha waxa weeye markay usoo bandhigeen laazim wuxuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam inaysan dhib lahayn leannahu saxaabadu dee waxay ahaayeen ardaydii nebiga shirki inay la yimaadaanna ma dhacaynin intay wax barteen kadib oy islaameen leannahu dad markaas waxay u kala baxeen bay ahayd markii dambe ay u bandhigeen uu arkay dhammaantood wuxuu yidhi markaa maa araa ba'san dhib uma arko man istadaaca qofkii awoodi kara an yanfaca inuu anfaco akhaahu walaalkii falyanfachu ha anfaco sidaasuu markaa yidhi nebigu calayhi assalaatu wassalaam xadiidkaasina waa xadiid saxiixa isaguna marka waxa weeye sixadiisa waxaad ka raadinaysaa qeybta dambe oo hawaamish wa tacliiqaad ayaad ka raadin kartaa axaadiista dhammaantood isagana muslim baa soo saaray wuxuuna ku soo saaray 2190 lambarka xadiidka uu halkaas ku soo saaray huma dabadeed lamaa kaana markuu ahaaday waaqicu lxaali xaaladda jirta yashhadu ay qirayso bianna a'immatan culumo oo min salafi lumma ummadda salafkeedii ah qad raquu inay tufeen biaayaatin aayaad lam yarid innasu nasku uusan ku soo aroorin biikhtisaasi ruqyati biha in lagu khaas yeelay ruqyada wa min daalika uuna ka mid yahay kuwaas
maa dakarahu ibnu lqayim aljawsiya ibnu qayim aljawsiya wuxuu ku sheegay fii dibi nabowi kitaabkiisa dibu nabowi la yidhaahdo wuxuu ku sheegay min ana imaama axmed raximahu llah imaam axmed allah u naxariistay kaana wuxuu ahaa buu yidhi yaktubu lilmar'ati haweenayda wuxuu u qori jiray idaa casura calayha wilaadatuha haddii dhalmadii ay ku adkaato oy dhali weydo fii jaamin waraaq ayuu ugu qori jiray abyada oo cad ayuu ugu qori jiray oo ayi shayin nadiif ama shay kastoo nadiifa wuxuu ugu qori jiray xadiida ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma xadiidka ibni cabaas yani qisadii ku timi xadiidka ibni cabaas radia allahu tacaala canhuma laa ilaaha ila allahu alxaliimu alkariim subxaana allah wtabaaraka allahu rabu alcarshi alcadiim walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin ducadaas iyada ah oo culummada qaar ay ku tilmaamaan ismullahi alacdam inuu ku jiro ama ducaa mustajaaba inay tahay ducadaas ayuu markaas ku qori jiray laa ilaaha ila allahu alxaliimu alkariim ilaahay mooye mid xaq lagu caabudaa ma jiro alxaliimu ka dulqaadka badan alkariimu ee wanaagga badan subxaana allahi ilaah baa ceebla watabaaraka allahu ilaahay baa barako badan rabulcarshi carshiga rabbigiisa alcadiimi ee weyn walxamdu mahadlilaahi allah leh rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ayaa leh xadiiskaasna waxaa wariyey waa muttafaqun calayhi wey akhrajahu albukhaari wa muslim muslim iyo bukhaari labadu waa soo saareen waa xadiis muttafiqa wey wuxuu ku dari jiray kaannahum yowma yarawna maa yuucaduun lam yalbathuu ilaa saacata min nahaarin balaaq iyo oo suuratu axqaaf ku jirta iyo kaannahum yowma yarawnaha lam yalbathuu ilaa cashiyatan aw duxaaha oo suuratu naasicaad ku jirta intaasuu u qori jiray marka taas macnihii waa arrin mujaraba oo imaamu axmed uu arkay mooyaane aathaar hadda ku soo aroortay ama xadiis saxiixa oo leh sidaa ha loo qoro ma jirin marka macnihii wuxuu leeyahay a'immada qaar oo salafku waaqaca xaalka unbay la falgeli jireeno wixii ay markaas u arkaan inuu mujarab yahay ayay ku akhriyi jireen markaasaa yacni ku istishfa dalbi jireen wey wax xadiisoo macnaha saxiixa oo ku soo arooray in ducadaas ama dikrigaas iyo laba adaan aayadoo laysku darana ma jiraan laakiin imaamu axmed sidaasuu door biday wey waqad kataba wuu u qoray ay imaamu axmed raximahu llahu tacaala wuu u qoray daalika arrinkaa ligayri waaxidin qof wax ka badan dad badan macnaha ligayri waaxid marka lagu yiraha waa dad badan qof keliya ma aha ligayri waaxid qof keliya ma ahayne dad badan bay wadakara ibnu lqayim raximah llahu tacaala wuu sheegay daalika can jamaacati min asalaf arrinkaas oo ah macnaha inay ducada ku ijtihaadi jireen ama adkaarta ama qur-aanka ay ku akhriyayaan inay ku ijtihaadi jireen mararka qaarkood yacni can jamaacati min asalaf jamaaca salafka ka mid ah ayuu ka sheegay ibnu qayim minhum waxaa ka mid ah sheikhulislaam ibnu taymiya oo isaguna saas oo kale ku ijtihaadi jiray waxyaabaha uu ku akhriyayo qofka markaa jiran isagoo waaqicul xaalkiisa fiirinaya xaalkiisa waaqiciisa isagoo fiirinaya waqad yadiiqu lmaqaamu maqaamku wuu ka ciriiriyoomi karaa binaa annaga wuu nagu ciriiri noqon karaa low aradna alistiqsaa'a haddaan doonno inaanu daba raacno maa uhira can isalafi saalix salafkii saalix ahaa waxyaabihii laga soo gaaray oo fii daalika ku saabsan arrinkaas ay dadka ay wax ku akhriyi jireen arrinkii laga soo gaaray maqaamka haddaan hadda isdabagal isniraahno way badan tahay